السلام عليكم أصحابتو السلام ميل كستو joogtiin asxaabta dhammaan waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin asxaabteyda igu xiran aad iyo aada u mahadsantihiin maasha allah sida quruxda badan oo ay mar walba iigu xiran maanta waxaan ka hadlaynaa Faadimo Qurux maanta maxay ka hadlaysaa maanta waxaan ka hadlaynaa arinta Allah u naxariisto walaasheen hibo falaq oo ay ka hadashay wixii qulubteeda ku jira daawadayaasha aan u sheego marka dadaa jiro youtubero badan oo muqdisho ku nool weli inta ku nool u badan Yurub iyo dhulkaas in Nairobi u badan ay dhahayaan in marxuumada dhimata Allah u naxariisto malab bay cuntay kaniin bay cuntay kan ma jirto horta naf qof walba maanta ani nafteeda aan kula hadlaale meeshii loo soo joogo alla og hadda markaan muuqaalkan duubo aan dhiman doonaba alla og runtu isku sheega fiican beenta waa shay xaraam qofka bini'aadanka sidiisa haddii been lagu barto maalintu uu runtu sheega wax walba uu sheega beena loo maleena marka ani ahaanteed waxaan u soo fariistay youtuberaha dhahayaan malab bay ku dhimatay ay cunaysay mise kaneen waxaas waa been qoftan intan bilood ay xanuunsaneen war haddaa dhig leediin asumcadii sharaf leediin iyadoo galofiska maalintii gacmaheeda ugu xarnad oo gabsaarta gaduudan u saarnay waxaan uusanahay niitile waan bararsanahay waxaan cayil maaha barar waa jiro waaya niitile kumentiga maxaa kusoo qorteen maxaa falcelin oo ugu soo sameynaysa maanta qofka markuu dhintay maanta waxaan laga rabaa inaad u dhahdin Allah u naxariisto marxuumada ma aha inaad soo fadhiistiin aad sawirkeeda iyo muuqaalaheeda hore aad soo qaadatiin oo aad sheegtiin ilmay dhashay waaliday السلام عليكم أصحابتو السلام ميل كستو joogtiin asxaabta dhammaan waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin asxaabteyda igu xiran aad iyo aada u mahadsantihiin maasha allah sida quruxda badan oo ay mar walba iigu xiran tihiin maasha allah mar walba ii dhiirigelisiin mahad celintiina halkan kuma soo koobi karo maasha allah maasha allah maasha allah asxaabta insha allah iyakana nagu soo biiri doono waxaan leeyahay fadlan waa cosi haddii aa aragtid muuqaalkayga janaalka subscribe iska saar waa bilaash anigana dhiirigelinoo ii yahay adigana waxba kaama dhibaayo waa walaasha oo adhag ugu siisay ana dhiirigelinoo ii yahay adigana waxba kaama dhibaayo intaas waa iga cosi insha allah asxaabta cusub oo igu soo biiri doonta ayaan ka codsanaya asxaabteeda hore ila joogtana waxaan leeyahay mar walba mahad celintiina kama daalo sida quruxda badan oo mar walba aa garabkayga u taagantihiin maasha allah maanta waxaan ka hadlaynaa Faadimo Qurux maanta maxay ka hadlaysaa maanta waxaan ka hadlaynaa arinta Allah u naxariisto walaasheen hibo falaq oo ay ka hadashay fartun balbalaarka ee dhahday gabadhaas hala dhigo hala iska dhaafo Soomaalida waxaa ka batay dhibka waxay jecel yihiin mar walba waxay jecel yihiin xasarada shalay gabadhaas marka ay u baahneed waxba ma uusa u qaban markay ay dhihi jirtay Allah u naxariisto walaashan qabrigeeda waasac Allah uga dhigo markay dhihi jirtay Soomaaliya subscribe igu caawiya Soomaaliya wax ii qabta Soomaaliya ii kaca Soomaaliya ii kaca maanta iyadoo dhimatay janaalkeedii wuxuu ku sii dhow yahay 50,000 oo subscribe ku sii dhow yahay shalayna markay nooleed oo adduunka joogtana cidna wax ma qabaneen qof walba wuxuu soo qaadanayaa marxuumada fiidiyogeedii iyadoo hadlaysa iyo koodhahan daawada malabkay cuntay rabbi subxaanahu wa tacaala wax walba og gabadhaas iska hara Allah u naxariisto ducay maanta idinkaga baahan tahay maanta idinkama baahna in aad soo qaadaan inaad fiidiyadeeda soo qaadataan inaad hadalkeeda soo qaadataan inaad hadalkeeda ku dhex dartaan fiidiyadiina ay youtube-ka irsaaqad uga raadsataan qof walaalka oo dhintay in aad irsaaqad ku raasatid ama views ku raasatid waa laga fiican yahay inaad soo qaadato fiidiyowgiisa oo aad gashatid youtube-kaaga waa laga fiican yahay shalay markay nooleed waxba idinka uma qaban maantay qabriga ha idinkaga jirto u duceeyay inuu ilaahay qabriga waasac uga dhigo su-aasha u fududeeyo insha allah intii ay ka dhimatana ehelkii ay ka dhimatana sabr iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo u duceeyay inuu ilaahay jannada geliyo walaashan fartuun balbalaarka waxay dhahday ha laga haro waa runteed ha laga haro fartuun balbalaarka waxay tiri gabadhaas ha laga haro waa runteed qofka hadduu
dhinto waa laga haraa. Soomaalida waxaaba ka bata dhibka sabanka aakhir sabanka aan ku jirnaba adoo dhimataaba lagu soo qaadanaa dharar meel walba TikTok ka dhihin, Facebook ka dhihin, YouTube ka kashid booy ku jirta. Waxaan ku dhahay isla markiiba waxaa lagu gaarsiiyaan ku dhahay 50,000 oo subscriber. war shalay waa idin baahneed 20,000 i gaarsiiyay idin dhehaysi. Shalay waa idin baahneed walaalayaal 30,000 i gaarsiiyay idin dhehaysi. Soomaalidu de waa wax ka dhib badan ma laha, wax ka dhib badan ma laha. Anaka sad tuugsanayna waxba nooma saarayaan. Biri hadaa dhimanana waxa ku Allah Faaduma dhimatay waan soo qaadanayna. wax ka dhib badan ma la Soomaalida. Soomaaliyay qofka faraha ka qaada iska dhaafa. Allah yarxam walaasheen Ilaahay ha u naxariisto. In aad daba dhigataan waa laga fiican yahay. Fartuun balbalaarka waxay dhahdaa ha laga haro gabadhaas waa runteed ha laga haro. qofki soo qaata fiidiyodeeda oo saaqad ku raadsada ilaahay baa la xisaabtamaya. Rabbiga subxaanahu wa tacaala aa la xisaabtamaya. qof walaalka ah oo marxuuma inaa inta fiidiyoogiisa soo qaadatid aad wax ku raadsatid waa fool xume tahay. wallaahi waa fool xume. Soomaaliya waxaas iska dhaafa ma fiicno. waxaan leeyahay dadka soo qaadanaya ka waantooba. maanta ducay nooga baahan tahay ilaahay inuu janno firdowsa geeyo, ilaahay inuu naarta ka xoreeyo. u duceeya rabbi subxaanahu wa tacaala inuu naarta ka xoreeyo oo qabrigeeda waasac uga dhigo insha Allah oo kuwa jannada loogu baaqo ay ku jirto. rabbi subxaanahu wa tacaala mar walba qofku tiisa ma dhaafayo, ama ha yaraado ama ha weynaado maalin un baa lagu jiidayaa, waa dhimanaysaa. wuxuu sabab ilaahay kaaga dhigay. gabadhaas soo sheegtay maroo fiidiyooga kasoo hadashay dhada aniga waa xanuunsanahay Soomaaliya iyadoo xanuunsan oo soo hadlayseen community ah oo qoraysan qaab daran. Allah yarxam walaasheen insha Allah waxaan rajeynayaa Soomaaliya fadlan haddii aan nagu cusub tihiin janaalkana dhiirigeli subscribe-tana noo soo saar waa bilaash waxba kaama dhibeyso waa dhiirigelin anigana dhiirigelina ii tahay maasha Allah inaan niyad yeesho maasha Allah mar walba aan wax soo geliyo. laakiin haddaan waxba helinba waxaan ku qofku niyad jabayaa. laakiin insha Allah biidnillah waa wadaynaa saa uga harimayno. waxaan ku dhag iskaga soo siiyo one love aan idin leeyahay. bye bye.